Halkan waa shabakada warbaahinta JMN. Wararka JMN waxaad nagala socon kartaan barteena Facebooka iyo YouTube-ka. Wararka ugu doorka roon oo maanta idiin hayno waxaa ka mid ah ciidamada difaaca Itoobiya oo loo dhisay si loo ilaaliyo danaha qaranka. Field Marshal Birhanu Jula ayaa sidaan yiri. Itoobiya oo muujisay inay iibsato saamiga warshadda sifaynta shidaalka ee weyn ee laga dhisayo dalka Kenya. Sidoo kale wararka maanta idiin hayno waxaa ka mid ah Turkiga ayaa weydiistay Interpol in ay isha ku hayaan hogaamiyaha Israa'iil. Israa'iil oo sheegtay in ay heshay xog khatar ku ah oo ka imanaya Turkiga. Wararkaasi oo tafatiran ayaa nagala socon doontaan JMN ilaa dhammaadkiisa la socod habboon. Ciidanka difaaca Itoobiya oo loo dhisay si loo ilaaliyo danaha qaranka. Field Marshal Birhanu Jula ayaa yiri sidaasi. Ciidanka difaaca qaranka oo si kalsooni leh u ilaaliya danaha qaranka Itoobiya ayaa la dhisaya, ayuu yiri Field Marshal Birhanu Jula oo ah taliyaha guud ee ciidamada difaaca qaranka Itoobiya. Xarunta tababarka taliska howlgallada gaarka ah ee 45aad ayaa maanta ka qalan jebisay koorsada kumaandooska aasaasiga ah ee tinaad la yiraahdo amaba adkeysiga. Fariinta Field Marshal Birhanu Jula wuxuu ku sheegay ciidanka cirka ah iyo kuwa kumaandooska ay yihiin ciidan isbeddel ku sameynaya goobta dagaalka sababta oo ah awoodooda jireed, adkeysiga iyo khibradooda militariga ah ee sare. Wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada cirka iyo ciidamada kumaandooska ay ka gudbeen caqabado adag oo ay si heer sare ah u guteen hawshooda qaran. Wuxuu sidoo kale xusay ardayda qalanjebisay amaba ciidanka maanta qalanjebiyey in dalkooda ku ilaalinayaan geesinimadooda caadiga ah iyagoo noqonaya ciidan diyaarsan oo awood u leh in ay difaacaan danaha qaranka Itoobiya iyagoo daacad ah oo go'aan qaadashona leh. Wuxuu sidoo kale sheegay in la dhisay ciidan difaac oo la isku halayn karo oo la jaanqaadaya Itoobiya oo ku qalabaysan hub casri ah. Field Marshal Birhanu Jula ayaa sidoo kale sheegay in aan weli ku jiraan xaalad diyaarsan la isku halayn karo oo lagu difaacayo danaha qaranka ee dalka. Itoobiya oo muujisay inay iibsato saamiga warshadda sifaynta shidaalka weyn ee laga dhisayo dalka Kenya. Maalqabeenka reer Nigeriaanka Aliko Dangote ayaa ku yaboohay saami dhan 30% oo ka dhigan 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Warshadda sifaynta ee weyn ee laga dhisi doono Kenya una socota dalalka bariga Afrika iyadoo la sheegay in Itoobiya iyo Rwanda ay muujinayaan inay iibsadaan saamiga. Saamiga 30% ee la bixiyey Kenya waxa ay ogolaatay in ay iibsato 500 milyan oo ka dhigan 10%, halkii Itoobiya iyo Rwanda ay muujiyeen rabitaanka ay u qabaan in ay wadaagaan saamiga harsan. Warshadda sifaynta shidaalka oo la filayo in ay ku kacdo ilaa 17 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo lagu dhisayo meel u dhow dekedda Lamu ee Kenya, waxayna yeelan doontaa awood ay ku sifaynayso 600,000 ilaa 700,000 fuusto oo shidaal cayriin ah maalintiiba. Marka la dhammeeyo mashruucan wuxuu door muhiim ah ka ciyaari doonaa hubinta amniga tamarta gobolka iyadoo la dhimayo ku tiirsanaanta wadamada bariga Afrika ee shidaalka la sifeeyey ee loo soo dhoofiyo. Turkiga ayaa weydiistay Interpol in ay isha ku hayaan hogaamiyaha Israa'iil. Turkiye ayaa codsatay ogeysiis caalami ah oo ku saabsan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu
iyo Afik Boskowitz oo ku saabsan weerarkii lagu qaaday markab gargaar bini'aadanimo u siday Gaza, sida uu ku dhawaaqay wasiirka cadaaladda ee dalka Turkiya Akin Gurlek. Kiiskan oo dhagaysanayso maxkamadda dambiyada sare ee 11aad ee Istanbul, waxaa ku jira 35 eedaysane, waxaana u daba socdaan amar xarig ah oo la soo saaray bishii Luulyo ee lagu eedeeyey weerarro hubaysan oo lagu qaaday dad rayid ah oo ku sugan biyaha caalamiga ah. Eedaysanayaashan waxaa lagu soo oogay dambiyo culus oo ay ka mid yihiin xasuuqa, dambiyo ka dhan ah aadanaha, jirdil, xarig aan kala soc lahayn, dhac iyo afduubka maraakiibta xamuulka qaadaha. Wasiirka cadaaladda Akin Gurlek ayaa sheegay in aysan oggolaan doonin in dambiyada ka dhaca Gaza aan la ciqaabin amaba kuwa mas'uulka ka ah ay baxsadaan iyagoo la ciqaabinin. Wasiirku wuxuu intaasi ku daray in Turkiga oo uu hogaaminayo madaxweyne Erdogan uu si adag ula garab istaagi doonaan dadka Falastiiniyiinta ah una isticmaali doonaan dhammaan hababka sharciga ah si uu dambiilayaasha u horkeeno cadaaladda. Israa'iil oo sheegtay in ay heshay xog khatar ku ah oo ka imanaysa Turkiga. Safiirka Israa'iil ee u fadhiya Mareykanka ayaa sheegay in Israa'iil ay heshay xog cod ah oo muujinaysa in Turkigu qorsheynayo in uu si weyn u ballaariyo joogitaankiisa militari ee Suuriya. Sida uu sheegay safiirku, Israa'iil waxay tallaabada Turkiga u aragtaa khad cas oo la gudbay. Wuxuu sheegay in Israa'iil aysan dooneynin in ay sii kordhiso xiisadda ama dagaal la gasho Turkiga ama Suuriya, balse uu sheegay in khad cas laga gudbay. Safiirku wuxuu intaasi ku daray in tallaabada Israa'iil ay ku salaysnayd xog ay heshay, isagoo ku tilmaamay joogitaanka Turkiga in uu yahay xadgudub cad oo ka dhan ah isfahamkii hore. Dhanka kale, wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa madaxweynaha Turkiga ku eedeeyey in uu dalkiisa ku jeediyo tallaabooyin khatar ah oo ka dhacaya Suuriya. Hadalkan ayaa yimid kadib markii Israa'iil si dadban u qiratay in ay weerartay saldhigga diyaaradeed oo ku yaala waqooyiga Suuriya horraantii toddobaadkan. Wasiirku wuxuu sheegay in halkii Turkigu uu tijaabin lahaa go'aanka Israa'iil ee ku aadan isdifaaceeda, ay habboonaan lahayd in uu ku ekaado cambaareynta ay ka hor jeedinayaan baarlamaanka Turkiga.